ninka inuu guriga isku soo laabto asagu kala hadee maanta beebiga yare maaragtaa caloosh ku jira abiis kala tagnana de ilmihii hore aabahood kala tagna kama xumo kamana liito lacag ugu sheegaan uma baahne wax cad ha loo qabto wax cad isku raacne wax cad anaga dhan isku ka iimaane soo arinta ninkaada maba la gali karaba iridaas hadaad furto adaa doqora waana ka baxay warka muudis amay waa sax walaal aniga arintaas ma furin balaaka dadka waxay iiga dhigeen macnaha hadalka u gidiyeen in macnaha ciwaan cusub oo maaragtay qalanjo iyo asma iyo adiga iyo aniga inaan soo sameeyno ninka ha ku noqonin oo lagu caawiyo in ninkiiba laga furo saa lagu dadka marka Soomaaliya la dhahayo warka saas markii loo wada saanay u wadaan marka ay dhamkeer ani markasta waxaan leeyahay qadarta iyo calafka Ilaahay wuxuu qoro baa dhaco wixii Ilaahay qoro aana dhacay bas ama noqoshaha noqoto ama kala tagis ha noqoto waxay noqoto mid kala hadee maanta beebiga yare maaragtaa caloosh ku jira abiis kala tagnana de ilmihii hore aabahood kala tagna kama xumo kamana liito wuu kora waana heesana hadii la wada joogana waa la arkaa laakiin aniga wax Ilaahay qadarana ma celin karo wax Ilaahay diidana ma sameyn karo sidoo Ilaahay ka dhigaana noqonay laakiin macnaha waxa jirto wax oo natiijo fiican kaaga muuqato iyo wax natiijo fiican kaaga muuqato natiijada meesha iiga muuqato natiijo fiican maaha laakiin kale wixii Ilaahay qadara dhacaayo warkana intaas ku soo afjara saaxiib waa mahadsan tahay arintaas iyo businesskan womenka aan noqonaysid iyo caanimadan iyo dumarnimadan leedahay iyo barefidkiina isku soo lafaaqayna hooyooyin waaweynanahay hooyooyin adduunka mustaqbal ka rabaanahay awlaadooda mustaqbal u rabaanahay anaga yaa nagula soo qaldin yaana nagula soo codaynin qoysas ma burburino qoysas ma kala dirno gabadhan waa gabar caana waa gabar kartideeda aan ku raacnay waa gabar nafteena aan u hurnay wax aan ka baahanahay siinayna Ilaahay baana nala og qof ay qoys u baahneen ma jirto qof waa aragtay iida nagu soo aaday haddana adaa ka qiimo badan because adi waxa u baahantaa daadah in lagu dhaho because wax soo saara leedahay maskaxa leedahay magaca leedahay waxa aad say gabadhan loo caawiyaa ee gabadhan laba kiri uma baahnee lacag ugu sheegaan uma baahnee wax cad ha loo qabto wax cad isku raacne wax cad anaga dhan isku ka iimaane soo arinta ninkaada maba la gali karaba iridaas hadaad furto adaa doqora waana ka baxay warka muudis amay waa sax gamada oo ladii soo saxiixay labadiina ladii soo saxiixay mid yarna Ilaahay weyn ku beere walaal responsibility wada qaateen gabadha ku daynine gurigaaga ku soo laabo qabso joogto yaro baby iyo kuwa kale Ilaahay disiyo si dhibiran idin siiyay waxaan leeyahay walaal isla korsada carruurta ayaanay walaal dadka ha dhageysan shalay markaad guursanaysay qofna maada ka amar qaadanin inaad aad wiilkaasi idinka waxaan leeyahay qofkii ku caawin karo walaaltinimo tolnimo waa gooni dadka ku dhahayo ninka ha ku soo noqonin ninka iska tod adiga choice-ka iska leh walaalo qofna lama dhageysto caawitaanku waa gooni walaaltinimadu waa gooni hooyo wanaagsan baa tahay ma sha Allah wiilka musaaban aad oga helaasad u barbaarisa u korisid saa u jeceshahay saa u ilaalisid waa ilmeeya mar walba aan arka wallahi billaah waa ilmeey soo kori maalin walba u barbaarayo soo wallahi walaalo ma sha Allah wiilka walaalkayna maalinta maxkamadda dageyseen uu kula joogay uu kula socday oo saxiixayseen ilmaha markii la wada saxiixa labada waad xaq bay ku leeyihiin in isla joogan isla koriyaan waxa la walaalo hadii uu maqlayo wiilkan waxa la walaalo gabadhaaseeto labo ilmood bad ooga tagtay midna waa umul oo haday dhal rabta haddana waa umul waa mid yar bahaysta musaab waa umul waa ilmo yariis marka waxa la walaalo gabadhaadu uu imo gabadhaadu ku soo noqo gurigaaga ilaalso ayaanay wiil adna gurigaaga walaal ilaalso dadka lama dhageysto reerkaaga hadaad jeceshahay ninka ilaalso horta abaa waa sax maxaawe hato ninka inuu guriga isku soo laabto asaga wuu rabaa laakiin diidan sababa u diidanay horta qofka waxa jirto waxay horta markasta waxa inuu soo noqnoqdo waa laga fiican yahay waxa fiican wax in go'aan laga gaaro wax la hubo iskula jooga hadana wax la hubo iskula joogi karin si nabad lagu kala dhaqaaqo marka asaga 4 ilaa 10 saac Ilaahay baa marqaati iiga Ilaahay baa ii jees saakadana u dambayso boqoraal ii soo qoray maalin uu soo message ii soo dirin ma jirto anagu ma jawaabo ana u xanaaqsan ana macnaha xanaaq gooni haya
marka waxa waaye يعني هذه حدا وحاطة قف أور ليه قف مركو أور يهاي لما فهمي كرو مركا دشت بالإسدتشي إسكندل مركا دشت كذب ولا في عنبه ما فكري كرتدو حناقاقي اسمه كنترول كرتد marka waxaan leeyahay wiilkan waxaan u talinayaa walaalo arintaas sameysay la lacagta nagu celiya naga daaya ninkii naagtiis qabay waa isku soo noqon doonaan topic lacagta nagu celiya internetka ka dhameynay nagu celiya topic ma hadli karaa ani gabadhaas iga qaaday ma dhamaystay gabadha walaalo hadal ana walaalo waan dhamaystay ma sha Allah faalmo ina adeer jahan afar dad waa ka hadashay wala naga taay horta ma lay maqlaa qofta la dhaho dareenay abaa sifiican waxay naga noqonay sheekada googa iyo naag isqaboona ka hadli karin hada bas marka aan hadlay suuq qofka hoos iga hadlayo oo qeyn laabsiye horta waa idin salaama kulligiin oo dhan tareen qalanjo waa salaamaya iyo faadmo buraanbur iyo ayaaniita gaariyaan wada dadka kala ma arko inta laba saddex dina hadlayso bacdoodkiina maqlay salaan iyo dadka kale oo daawanaya waxaan ku bogaadinayaa gabdhaha u istaagay inay gabar walaashooda garab istaagaan gabar walaashood ah ay garab istaagaan cod iyo maartay dhaqaalaba waxaan leeyahay maasha Allah guys waxa sameeyeen shaqo aad u wanaagsan marar badan baa waxaan dhahay aniga war hooy cid wax tarayso gabdhaha hoos loo fiirsho waliba hooyooyinka gabdhaha oo Afrika jooga oo maanta opportunity-ga iyo janiska dadkan westernka jooga aan haysan gabdhahaas markasta laga warhayo marka waxaan idin leeyahay horta maasha Allah shaqo fiican baa qabateen anaguna waa idin garab taaganahay taas hadda inta uga baxo ayaaniitaan mildaha ayaaniita abaayo ani waa kula socdaa waa ku daawada mararka qaybta xitaa comment meeshaada ku soo qoraa afka ka dhibaayo ayaanay abaa horta waxa waaye gabar waxa tahay maasha Allah aad u dadnimo badan survivor tahay hore ilmahaaga dhexda ugu xirato u soo korsatay ilmahaaga waxa leeyahay wixiisa ku siiyeen nin qof kale wixiis ku siiyeen ninka roonide ilmahaaga inta korsatay baa walaal ilmo Soomaaliyeed hadana shafka u tuntay oo korisa oo waliba si qurux badan ugu labista oo si qurux badan oo ilmahaaga amal u korisa waxaan qalbigayga ka go'aynin oo ilaaweynin ayaanay maalintii cunugaas aad ka qaadayso gabadha saa u ooysay micnaha naxariista inaad tiri aniga hooyo u noqonayo asmoonga asay liif inta noolahay ana shaf kelmaa u tumanaay please hadda igu soo qortid cunugan dib dambe ma uu ku arkaysid dibkiisa iyo dhaaftiisa ma aniga la cunugan dhabarka u dhixir ku xiranaay ma sha Allah ilaahin abaa ku guulay inta Soomaali aqligan insha Allah waa lagu garab taagan yahay taas marka hadaan taas uga soo baxo hooyo Friida ta hooyo dhalinyar oo dadaalaysa oo dalkiyo maanta dal burburay 30 sano xabadi ka socotay nool ka samaystay dadaalaysa maanta aan marnaba give up sameynayna ta ma sha Allah taada inta suga soo baxa baytan familkaaga aniga mid kaliya aan my experience aan leeyahay gabar kasto Soomaaliyeed adiga experience-gayga abaa noloshaada inay private ku ahaato waxay kaga fiican tahay malahan wiilkan guurka horta waa calaf iyo nasiib qofku wuxuu alfanaay iyo wuxuu guursanaay waa wax Ilaahay xaqiisa ku qoran Ilaahay baa shalay calafis ugu keen dara waa midna waa u sheega haddii aad jeclaan lahaydeen inaad qabiil sheegtaan cidaanahay si fiican aad u garanaysaan ayaana ma xigo dayaxna ma xigo laakiin waxaan ahay awaanad Soomaaliyeed marwo Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed gabdhaha walaalaheedna la jeclaata qeyrka kabadhan yaree walaashayga yaree curdun soo baxay nolosha u iftiimayse maalinba gelin ku harsanaysa noloshana inaan garab qabto hadday anigu tayda tahane dayaxo biliis hooyadii jacaylka kula hadlayse jacaylaan loo soo ooyin ama aan la isku macaynayn bisbaaskiisa la arkin lama maashto mirihiisa isku dulqaata oo saacadaas nin raga oo rag dhalaya inta maxaa la dhijirsaa ugu faraxdid oo noloshaada ugu enjoy karaysid noloshaada adiga kaliya private ku ahaato go'aanka ugu dambeeya naftaada adigu u gaar